daawadayaal ku soo dhawaada saxafi filimada soo barateen dhacdooyinka xiisaha leh oo aynu kaga hadalno aktarada Bollywoodka filimada ka sameeya ee dalkaasi Hindiya. daawadayaal barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa jilaaga caanka ee Shahrukhan isaga oo sheegay taageerayaashiisana bartiisa Facebook-ka kula wadaagay hees kamid ah heesihii filimaantii uu hore jilaagan u jilay hees ku jirtay. waxa uu yiri ma aqaano heestan waxa ay tahay ee waxaan idinka codsanayaa goorta la qaaday iyo cidda qaaday iyo waxa macnaheeda loola jeeday. haddaba dhacdadan uu Shahrukhan taageerayaashiisa kula wadaagay bartiisa Facebook-ka waxa ay ahayd heestii caanka ahayd ee Aakash Keham. heestaasi waxay ku jirtay filimka Kabihan Kabina. Shahrukhan ayaa heestan maqlay isaga oo safar ah waqti ay heestaasi ka shidnayd raadiyaha gaarigiisa. kadib ayuu jilaagan isla markiiba waxa uu soo galay bartiisa Facebook-ka isaga oo ku qoray waxaan idinka codsanayaa inaad ii turjuntaan ma xasuusan kara buu yiri goorta aniga aan heestan qaaday waxa aan u baahanahay inaad ii sheegtaan. waxa uu yiri noloshu waxa ay igelisay buu yiri xasuus aad u dheer. filimkaasi waxa director-ka ahaa ninka lagu magacaabo Kunta Shahwa Kabihan Kabina waxaana actor-ka ahaa jilaaga Shahrukhan Suchitra Krishnamurti iyo Deepak Tijori ayaa lead role-ka ahaa. heestan ee Kasham waxa ay ahayd hees uu ku luqeynaya fanaanka caanka ee Kumar Sanu waxaana heesta music saaray Jatinlal. heestan waxa ay ahayd markii ay ku jirtay filimkaasi Kabina oo Shahrukhan actor-ka ka ahaa. Shahrukhan ayaa ku dhawaaqay oo heestan qaaday markii isaga iyo gabadha filimka ay wada daadihinayeen ay Shahrukhan la kulantay. filimkaasi waxa uu ahaa filim aad loogu tixgeliyo jilaagan Shahrukhan waxaana lagu tilmaamaa filimaanta uu Shahrukhan performance-ga ama qaabjilinadii ugu wanaagsanaa uu ku soo bandhigay. haddaba Shahrukhan ayaa waxa uu ku mashquulsan yahay jilitaanka filimkiisa Zero oo ay la daadiin doonaan labada actrisho ee caanka ee kala Anushka Sharma iyo Katrina Kaif. filimkan ayaa waxa la sii daayay trailerkiisa oo 1 daqiiqo ah isaga oo isu diyaarinaya in uu filimkaasi jilaagan duubitaankiisa bilaabo. filimkaasi waxa la filayaa in la sii daayo 21 December 2018 waa sanadka haatan aynu ku jirnay. jilaagan ayaa waxa uu sheegay oo uu si raaciyay su'aalo wax laga weydiiyay heestan markii aad maqashay maxaa dareentay. waxaan soo xasuustay buu yiri waqtiyadii yaraantayda waxa iga soo dhawaatay buu yiri in aan ilmeeyo markii aan maqlay heestan. waa heesta Aakash Keham ee ku jirtay filimka caan baxay ee uu jilaagan daadihinayay Kabihan Kabina. haddaba daawadayaal heestaasi iyo filimka ay ku jirtay barnaamijka aynu kaga hadlaynay ee jilaaga caanka ee Shahrukhan intaas ayaan ku soo afmeerinaa. waxaa barnaamijka idin daadihinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax. waxaad ka daawanayseen saxafi films oo ah channel ka hadla arrimaha Bollywoodka iyo dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee aktaradaasi ay la kulmaan. inagoo isku duuban oo baahda saxafina intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad gelyo.